dhaawac ma qabaan iyo cagaha xanuunayo iyaga muddo intee leeg baad xanuunsanaysaa waxaan ka codsan lahaa in ayna soo caawiyaan haddaan nahay darbi jiifka ay bustayaaliyo noo keenaan walaalkood xamdaay waa xilli dambe xilligii waxaa lagu jiraa dhaxamaha nabad saaxiibayaal waxaan ahay barkhad Saleebaan Galaal waa xilli habeenimo ah goorsheegtu waxay qoraysaa 2:13 daqiiqo saacadda bariga Afrika waxaan aaladaha arag maqalka qaada u qaadanay u kurgalka xaaladda dahsoon ee darbi jiifka beerkooda beerka xigin xilli ay dhacayso dhaxan qabow iyadoo ay jirto dad jaad walba leh oo aan haysan hooy bustayaal fanaanado iyo dhammaanba agabka dhaxanta laga gaashanto jidadka ayaan kula kulannay dhalaan dheelka weeshada dhedada iyo qabowgana masaarifsada iyo dad waaweyn oo dhimir ah oo duruufuhu macmiisheen adar magaca maxamed balada way maxaad xilligan oo kale imka waa xilli dambe gidaarkan baad fadhidaa bilaa fanaanad baad tahay waxa dhacaysa dhaxanada fara badan bal dareenkaaga wallaahi walaa dareenkaygu aad iyo aad buu la ciibsanyay bustayaaliyo maxayda koortoonna ma haysano waxaa jira darbi jiifka haddaan nahay darbi jiif maxay qaar dhaawaca qaar maxay aan bustayaalaysan qaar waxay cunaan aan haysan qaar maxay doonayeen dhulkooda lagu celiyo qaar maxay aad iyo aad baan u la ciibsanay maxay koormaashanay habeenkii aad iyo aad baan u dhaxmoonaa garanaysaa train teleg baatihiin intaad markaad garanayso kaliya asxaabtaada ama daddigood jiifsataan aad dhaxamaha wadaagtaan aad iyo aad bay u badan yihiin dadweynaha ku daawanaya Soomaaliyeed maxaad ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahaa in ayna soo caawiyaan haddaan nahay darbi jiifka ay bustayaaliyo noo keenaan walaalkood anigu waxaan ahay inaan maxay kiimi burco dhaxmaha wax nagala siisiyo adar magaca xamdan xamdaay waa xilli dambe xilligii waxaa lagu jiraa dhaxamaha ma jirtaa waxaad ka codsan lahayd dadka ku daawanaya ama aad dalban lahayd waxaan dalban lahaa dhaxanta naga baabi bustayaal iyo fanaanado labadaba magaca cabdimaad waa xilli dambe xilligii dhaxamaa lagu jiraa ina yar baa tahay gidaarkan baad joogtaa maxaad codsan lahayd koran way habeenkii ma dhaxamato ama dhaxan fara badan ma dareentaa dawadayaal waa xilli dambe magaalada Hargeysa bartankeeda ayaan joognaa waxaanu la kulansannahay ama aanu la joognaa ciyaal darbi jiifa oo runtii ay ku jiraan qaar aad u yar adaro magaca aniga cabdiwasax way waa xilli dambe dhaxan baa dhacaysa waxa lagu jiraa bilowga dhaxanta badnaa Hargeysa gidaarkan baad fadhidaa maxaa wax barasho iyo adigu iyo aaba nool yihiin wax u dhacay ma garan habeenkii dhaxanta oo kale ka waran dhaxan xoogana qabata way maxaad ka codsan lahayd dadweynaha Soomaaliyeed ee ku daawanaya bustiyo horba ka codsan lahayd ninkan halkan jiifa waxaan xanuunsanayaa isdalaya midiyaaliye waxbaa ku dhacay aad iyo aad buu xanuunsanayaa lugaha xanuunaya waayo wax nafaqo leh ma helo inta badan annagu ma helo waayo nabaraan baa ku dhacay maalin dhaweyd ilaa cuntada annaga u keennaa hambooyinkaasaan u soo gurnaa maxay heeday markaa waa dhaawac oo maba kacayso maba kaca annaga wuxuu maxay heeday cunaayo wuxuu doonaya masiina way halkan gidaarkan baa u hooya gidaarkan baa u hooya magaciisagu waxaa la dhahaa fandhicil fandhicilow maxaad ummadda Soomaaliyeed ka codsan lahayd waxaan ka codsanayaa in dakhtar geeyo meel geeyo hagaagsanoo dhaxantii waxa ka weyno howl inoo sameeyo iyo waxa inoo sameeyo bustayaaliyo wax la siiyo dhaxamaha ka weyno hadda dhaawac baad qabtaa marka dhaawacan sidee ku gaadhay
dhaawac baan qabaa igu yaala iyo cagaha ay xanuunayo igu yaala muddo intee leeg baad xanuunsanaysa ilaa waxaan xanuunsanayay iminka ilaa 2 bilood marka halkanaa kuu hooya oo gidaarkan baad seexataa ilaa gidaarka masaay hooyo gaaja gudisha meesha ciddii ay gataba maharkaan waxa kaloo iskaaba ilaahay wax siiyo amooyinkaas wanaag ka soo qaadaa dhaxanta ka waran maadaama lagu jiro bilihii dhaxamaha magaalada Hargeysa iyada dhaxanta ka waran dhaxanta waa dhaxan racsa waxaan baan abstaariyo wax loo qabeeyo hagaagsan lageeyo dawadayaal wad aragtaan dhaxanta dhacaysa ee saacadan oo xilli dambe magaalada Hargeysa wuxuu xiran yahay shaar kaliya dhaxantu doorta Allah wala keenay abasiyaatee waxay u baahan tahay hub iyo bustayaal iyo xawaasin daadii la qadarmay kiimaadaan qormay ilaahay u soo saqrun bade sharaf leh laakiin dhaxan fara badan oo dhana ah dhaxan fara badan way jirtaa soo wista meelaan la socda dadka ay si cudurka jiifo dhan oo la socda anigu ma ahay waxaan leeyahay dawladina oo socotaane insha Allah billahi kii faad u qom kartaan oo iskale isxaafadaba gabajiga xuquuqtaane ya أو صعب قوتان إلى هو اللي القوة قبل شو قوتان dhaxanta intii ku imanano anagu dadweynaha dadka Soomaaliyeed baan gaarsiin doonaa warkiina insha Allah waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ay ku soo caawiyaan bustayaal iyo deegoyaal iyo funaanado iyo koodhar maadaama dhaxan fara badan dhacayso harjeenaya marka xigteenan ku soo noqono anaga oo wax ku sidna warkaagana anagu waxa ma hayna dadka Soomaaliyeed gaarsiin aad iyo idu mahadnaqaya sida aad iyo aad wanaagsantahay taad bixisnayna ku aan saaraabo wastakal ama ka ogahay baahi kale joogtay bulshadana waxay codsanaysaa bustayaal funaanado koodhar kuwani waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Careedig waxayna ka codsanayaan inay ka soo gaaraan dheedada iyo dhaxanta la saaxiibay barkhad Salebaan Galaal Hargeysa